jaaliyadda Soomaaliyeed ee Holland iyo nawaaxigeeda. darsigani waa darsigii saddexaad ee maanta baxaya waana darsigii guurka ku saabsiisnaa ee inoo soo jeedinayay fadiilatu sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. falyatafaddal mashkuuran ma'juuran wafaqahu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. shalay waxaynu soo tilmaamnay muqadamaadkii hore guurka iyo nikaaxu arkaantii uu u baahnaa ama waxyaabihii muhimka u ahaa. waynu ku soo sheegnay inuu yahay nin iyo gabadh isu xalaala oo isguursan kara, iyo weli iidankiisa la rabo, iyo siiqatul caqd legal contractku siduu qaabku u dhacayo oo ah baynu nihi qubuul iyo ijaab, in midna uu sheego gabadha inuu guursanayo ama in loo guuriyey, ka kalena uu sheego inuu aqbalay guurkaasi. intaa waxaa raaca baynu nihi in markhaatiyaal ay jiraan. intaasi haddii ay dhacdo waxayana muhima baynu nihi in gabadhu hadday bikro tahay iyo hadday thayib garoob tahayba in idan la weydiiyo. idanka garoobtu waa inay hadasho oo aqbasho. idanka inantuna xishoodkeedaa loo aqbalay oo haddii ay aamusto aamuskaa lagu meherinaya. haddayse diidan tahay way ka hadli kartaa, way diidi kartaa. axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxay ku soo aroortay gabadh baa nebiga u timi, jaariya bikra iyo mid tayiba labadaba laba xadiid baa kusoo kala arooray oo le aabbahay baa i meheriyey, meherkaana maan rabo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam nikaaxaasi wuu celiyey ama wuu diiday. dabeetana waxay tidhi waxaan rabay in dumarku ogaadaan aabbayaashu inaanay waxba ku lahayna waan ogolaaday. nikaaxii aabbahay uu fuliyey. yani waxay tilmaamaysaa in idan la weydiiyo. haddaynu hore uga sii soconno marka waxyaabaha sunanka iyo curfiga ku soo arooray, sunnada waxaa ka mid ah marka nikaaxaasi la guntayo in khudbatulxaaji la akhriyo. waa khudbadan had iyo gooraa maqashaan imaamado akhrinaya, in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina. khudbadooda dheere noocaasa khudbatulxaaj baa la yidhaahdaa. meelaha ugu muhiimsan ee ku soo aroortay waa in arooska marka la meherinayo lagu furfurto. intaa wixii ka dambeeya waxa weeyaan in loo barakeeyo reerka, loo tahniyadeeyo guurka. mas'alada sadaaqa waa inaan iyada xagga hore ku sheegin. meherku yaraantiisa iyo badnaantiisu xad ma leh. ilahay qur-aanka wuxuu leeyay wain aradtum istibdaala zawji makaana zawj waataytum ixdaahuna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shaya. haddaad gabadh ka tegayso gabadh kala guursanayso oo aad middood siisay baa la yidhi qintaar, yacni maal tiro badan le aad siisay, falaa ta'khuduu minhu shaya, waxba ha ka qaadanina. culamadu waxay dhahaan meherka ka yar baa barako badan. kow, meherka in la sheego oo markaasi la wada dhigo waa bannaantay. in la sheego oo la isku lahaadaa waa bannaantay. laakiin sidan soomaalidu ay isugu lahaatay hadhow dafirka iskaga dhadhow maaha, ama isku lahaanshiya xad wuxuba u qiimo beelo. waxaa dhacdaa dadka badh dee beri 10,000 lacag ahayd in 10,000 islaanta lagu meheriyey, maantana 10,000 dee $1 maaha. 10,000 oo shilin soomaaliya waagii horena waxaa laga yaabaa inay xoolo aada u tiro badan ahaayeen, maantana $1 qiimo ridka intaa leg in lagu rido maaha. waxaa habboon in la siiyo. waxaa kaloo habboon ama bannaan aan idhaahdo in meherka badh la qadimo, badhna dib loo dhigo. yacni maalan $1 baad ku meherisay, inaad 500 la qadintid ama 600 qadintid ama 400 qadintid, baaqigana lagu lahaado, iyana waa bannaan tahay. waxaa kaloo bannaan
meherba haddaan la sheegin see gabadh laga dhigto mehrulmathal bay leedahay kuwa hablaha iyada u dhigma wixii lagu meherin jiray ayay kugu leedahay wuxuun baan jirin gabadh aan sadaaq laba siinayn oo aan lahayn baan jirin isagu ma jiro sadaaq lii meher lii meherku mararka qaarkood xataa manfaco yar wuu noqon karaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku yidhi utlub walow khaatim kaatun xadiidana ha noqdee wax soo hele waxba soo waayey waxaa la yidhi wixii aad garanaysa qur-aan aan kugu merin inuu qur-aanka baro wakhtiyada dambe waxaa caado iska noqotay dadku inay yidhaahdaan kitaab qur-aana gabadha ha laygu meheriyo kitaab qur-aana haddii kamaal ahaan looga jeediyo qiimihiisa dee waa iska 100 karawna lagu soo furtaa soo maaha meelaha yani wax weyn maaha waxa ka roon maal la garanayo inaad samaysataan maal macruuf oo la garanayo in gabadhu qabsato inta maal la helayana nabigu muu odhan ninkan qur-aan baan kuugu meheriyey marka hore war wax doon baa la yidhi markuu waxba soo waayo uu yidhi waxba ma la soo waa ayaa la yidhi qur-aanka intaad garanayso ha lagugu dhigo waxa fiican markaasi gabadha in meher la siiyo meherkaasina inuu noqdo shay caadiya hadduu batana dhib maaha hadduu yaraadana dhib maaha laakiin dhaqamadana in lagu xidho meher aad u tiro badanoo inintu inay ceeboobayso haddaan kumaankum lagu meherin waa dhaqanka liitee canuusadan carbeed keenay in khaliijka dumarka la guursan kari waayo oo inantuun guriga lagu hayo sababto waxyaabaheed baa xoolo badan ka doonaya ama waxaa la rabaa xoolo badan in lagu meheriyo waxaase sharciga islaamiga uu khilaafsan yahay sharciga islaamiga asalkii waxa weeyaan gabadhana in loo guuriyo ninkana loo guuriyo meherkana inaan dadka lagu dhibin qofku wixii uu awoodo in loo sameeyo intaa kadib waxa weeyaan in la iclaaniyo guurka oo farxaddiisa la muujiyo oo la tahniyadeeyo ayaa sunnada ah in la iclaaniyo oo loo barakeeyo laakiin waxaa fiican guriga muslimka ah shareecada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenka gabadhaada marka lagu keeno gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska marka la keeno luqada soomaaliyeed iyo lahajaadka tiro badane xaaskaasi marka ay kuu timaado sunnada waxa weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato dabeetana ducaysatid ku ducaysatid ilaahu wixii khayr aad ku abuurtay inay haleeshii wixii shar ay leedahayna ay dhaafi dabeetana aad ducaysatid 2 ragcadood oo sunna aad tukatid cibaado iyo alla bari in lagu bilaabo wakhtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo oo dumar isa soo qaaqaawiya qolo muusig tunta naaga heesaa rag heesaa bal aad moodo in nidaam gaaleedkii la qaatay ilaa xad aad arkayso gaalada maryo cadcad iyo kaatun yaroo laysu geliye iyo waxaas waa nidaam gaaleedka waa kiniisadda wixii laga soo qaaday in halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysaa ubad baad rajaynaysaa meelaad ku xasishaad rajaynaysaa halkaad khayr ku asaasi lahayd yaa la bari ee aad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd inuu wax fiican kaaga dhigo inaad shar ku asaastaa soo markaa in shar uun ka dhasho noqon maayo ninka camal raba inuu sameeyo ee yidhaahda macsaan ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo waxaa lagu ogolaya inaad farxad ku bilowdo haa inaad faraxdo waxaa lagu ogol yahay inaad samayso maxay casuumad waliima nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato waana cabdiraxmaan see waxu jiraan buu yidhi oo ilahay rasuulkiisiiyo waan guursaday buu yidhi wuxuu yidhi maxaad ka bixisay nuwaa min dahab buu yidhi waxaan ka bixiyey laftimireed in leego dahaba waxoogaa garaamaa weeyaanoo dahaba ayaan meheru siiyey dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat weliimo dhigo neefna ha noqotee laakiin waxaa kaloo soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid a inaanu xoolana qalin ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey idan weliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo
in weliimo la sameeya waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo la sheego in reerkaa la isku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zine ahaynay dadku u ogaado oo la iclaamiyo weeyaan in la farxo weeyaan oo reer cusub oo la dhisay oo bulshada kusoo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo in la sameeyo cunnadaasi haddii aad waxhaysato muusir tahay inaad neef 2 3 waxaad qaali karta inaad qasho haddii aanad waxba haysan waajibkuguma aha haddaad waxoogaa digina u walaaqdo waa khalaas waa waliima haddaad in beriis how samayso waa waliima wixii aad haysato uun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha asalku guurkaa fiican oo la buunbuuninaya laakiin cunnada maaha wuxu iyo in maqashan kale maaha waa in reer muslima la aasaasay waxa la buunbuuninaya oo laga rajaynayo ubad saalixa iyo dad khayr qaba inay ka dhashaan sidaa awgeed waliima wixii aad awooddaa waliimo ah cursiguna waa wixii aad awooddo walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waliimada 3 cashuu mararka qaarkood digi jiray 3 maalmood oo isku xiga 3 maalmood dadka aad casuunto oo cunno siisid haddii farxadda dumarku ay u baahdaan ama raggu u baahdo gabay iyo hees iyo waa la tirin karaa bishart culamadu waxay dhahdeen muusig iyo waxaasina inaanay la soconin xumana inaanu sheegaynin horta haddaad gabay maqasho ama hees maqasho shareecada islaamiga haddii aan waxan dheeraadka ahay naga dambeeyaan muusigan iyo baabkan ha dambeeya laakiin markuu hadalka yahay wixii afka awalba ku xumaana wuu ku xun yahay wixii ku fiicnaana wuu ku fiican yahay wixii ku bannaanaayo mubaaxa ku ahaana waa ku bannaan yahay yacni gabaygu wuxuu ka warramayo ama heestu waxay ka warramaysaa isweydiinta lown ma wax wanaagsan bay sheegaysaa waa bannaan tahay ma wax iska mubaaxa bay sheegaysaa wax iska bannaana aha waa bannaantay ma wax xun bay sheegaysaa waa xuntay tan iyada muusiga iyo intan leh dee wax kale kama warranta in nin baa naag daba socday unbay ka warrantaa mayaad hees kale weligiin maqasho nin baa naag jeclaaday nin baa naag jeclaaday intaas baa lagu celceliyay xikmad ku fadhida ama waa la farxi karaa waa la akhriyi karaa waa la wadi karaa dadka imanaya laakiin waxaa asala inay u yimaadaan inay duceeyaan fiicanta bay culammadu yidhaahdaan in dadkao dhan loo yeedho dadkao dhan maxaa looga jeedaa yacni kuwa haysta iyo ku faqiira iyo kuwan inta badan dadku waliimooyinka waxay sameeyaan inta magaca la unbay u yeedhaan maya sharul wariima waxay yidhahdaan waa ta foqoradana loo diido kuwa waxhaystana la siiyo ninka waxhaysta yeedhistaad u yeedhay waa maamuus cunno kaagama baahnayn waa uun inaad maamuusayso ayuu u arkayaa laakiin kan faqiirkii maamuusna wuu u arkaa waxtarna wuu u arkaa inaad maanta qadaysisa waxtarna way tay waliimada waxay ku khayr badan tahay markaasi inay noqoto waliimo dadku ay wada wadaagaan oo ku faqiira iyo ku waxhaystaba in loogu yeedho iclaankaasaa sunnadiiya oo haddii la iclaamin waayo maxaa dhacaya ma asaxaysaa odagii inanta dhalay iyo ninkii gabadha guursanayey iyo markhaatiyadii iyo intaasaa loo yeedhay waa guursadeen waa loo guuriyey wixii ay cuncuni karayeen bay meeshaas kaga cuneen dabeetana gabadhiisii buu iskala tegey guurkaasi ma asaxaya aroos iyo qayle iyo buuq iyo waxba toona lama samaynin haa dabcan wuu asaxaya hadduu arkaantii helo iyo shuruuddii ay u baahnayd wuu asaxaya waana guur xalaala isaguna laakiin sunnadu waxa weeyaan in la iclaamiyaa waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo aynu isweydiin karnaa waxa weeyaan imisuu ninku guursanayaa se kuwa ka xaaraama aanu guursan karin ila waxaynu idhi axkaamu ziwaaj baynu xoogaa ka sheegaynay kow 4 wax ka badan ma guursan karo fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa hulaatha wa rubac
afar ka badan ma guursan karo. nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii carabtii hore dad tiro badan bay iska guursan jireen. kuwii guursaday wuxuu ku yidhi inta kale iska sii daa, afar kala hadh buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. maxaa dumarka mamnuuca inaad guursato? waa laba qaybood. qayb weligood mamnuuc kaa ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. qaybta weligoodba mamnuuca ah ee aan marnaba kuu bannaanayni saddex sababood midunbay ku yimaadaan. qayb nasab aa wadaagtaan. nasabka kuwa aad wadaagta aan kuu bannaanayni waa wixii adiga kaa farcamay ama adigu aad ka farcantay. wixii qof dumaree adigu aad ka farcantay, hooyo, ayeeyo, ha fogaato ama ha dhowaato, ma bannaana. wixii adiga kaa farcamay, inantaad dashay taadawowga ku seedkaasu si ahayd, ma bannaana. waxaan kaloo bannaanayn wixii aabbaha ama hooyada walaalla ah, habaryar iyo maxay iyo eeddo. habaryar iyo eeddo waxaa kaloo la mida kuwa iyaga habaryar iyo eeddo u ahina waa la xukun. yacni awowgaa bay la walaaliyiin. awowgaa talla walaalkii aabbahabay maxay u tahy? ayay eeddo u tahy. carabtu waxay dhahdaan adigana eedday kuu taho inagu ayeeyeynu dhahnaa, laakiin carabtu iyadana eedunbay u yaqaaneen. marka fuqahadu markay camaadka ka warramayaan bay soo gelayaan. marka aabbaha talla walaala, awowgaa talla walaala, awowgaaga kale talla walaala, kuwa aad ku taxantay oo dhan wixii walaalla ee haweeni waa kaa mamnuuc. waa derajada koowaad un iyagase. derajada koowaad maxaan uga jeedaa? tay dhaleen mamnuuc kaamaha. eedadaa tay dhashaa waa maxay? waa inaabti iyo kuway soomaalidu uguba jeclayd. marka mamnuuc iyadu maaha, laakiin waa levelka koowaad. aabbaha gabadhii la walaala ma guursanaysid. awowgaa tii la walaala, awowgaaga ka dambeeya kii la walaala, wixii asalkaagu uu ka yimi wixii walaalla ahi ma guursanaysid. hooyadaana xaggeeda u kaxeeyana waa la mid. idan wixii khaal la yidhaahdo, habarya, khaala iyo camaad, dhankaa doonto u tiriye, iyaguna mamnuucay ku jiraan. waxaa mamnuuca ku jira wixii hable kula walaala iyo waxay dhalaan. inantaad abtiga u tay, taad abtiga u tay, tay sii dhashay, tay kale sii dhashay, kuwaasoo dhammi waa kaa mamnuuc. waxaa kaloo la mid ah adeerka kuwaad u ahayd. walaalka ama walaasha wixii ay dhaleen waa mamnuucay ku jiraan. intaas nasab bay kaaga xaaraan yihiin. inna musaahara guur bay xaaraan kaaga yihiin. haweentaad guursato hooyadeed waa kaa mamnuuc. haweentii aad qabtay hooyadeed waxay weliba mamnuuc ku tahay caqdi oo qura inaad gashay. yacni caqdiga waxaan uga jeedaa xataa haddaanad u galmoonin. gabadh baad meherisay, waabaad iska furtay, hooyadeed ma meherin kartid mar dambe. haddaad u galmooto iyo haddaanad u galmooninba waa isku mid. mar haddaad gabadheed meherisay hooyadeed ma guursan kartid. cagsiguse waa inaad u galmootay. islaam baad meherisay, haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. haddaanad see u galmoonin oo aad furto inanteeda markaa waad guursan kartaa. marka cagsigu waa bannaan yahay, laakiin sida kale may bannaana. waxaa kaloo kaa mamnuuca wixii aad dhashay adiga kugu abtirsaday wixii ay guursadeen. inankaad dhashay, kaad awowga u tahay, kaad awowga u siitay, wixii adiga kaa farcamay wixii ay guursadeenee dumar ahaa, iyana waa kaa mamnuuc. iyagu caqdigoo quru mamnuuc kaaga yihi. mar hadduu meherba ku xidhay waa bes, adiga waa kaa mamnuuc. waxaa kaloo la mid ah kuwii ku dhalay wixii ay guursadeenna, aabbaha, awowga, kuwaasi wixii dumar ay guursadeen. intaasoo dumarina waxay mamnuuc ku noqdaan maxay? sabab guur. waa guur baa nasab ma wadaagtaan, laakiin guur ayay mamnuuc kaaga noqdeen. waxaa jira kuwo kale oo nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam alradaaca taxrum maa taxrum alwilaada wa ummahaatukum allati ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca qur-aanku uu tilmaamayo.
waa dhaqan aan soomaalidu lahayn inta badan laakiin wixii aan naas ku walaalowdeen iyana waa mamnuuc islaan ayaa ilmo yaroo aanay dhalin ayay jaqsiisay naaska waa imise goor markay jaqsiiso culamada qaar waxay qabaan haddayba naaskaba ku duuda uu ka dhargo bes khalaas waa ku filanta laakiin madhabka shaaficigu waxa weeyaan inuu jaqsiiso 5 jeer 5 goor inuu naaska intuu nuugay ka dhargay oo iska daayay isla markaana uu ku jiro maxay da'dii yareyd uu ku korayay caana cabkoo qura u ahaa labadii sare hore uu ku jiro kaasi ilmaha islaantaasi naaska nuujisay wuxuu la mid yahay ilma ay dhashay oo kale maadaama ilma ay dhashay oo kale uu la mid yahay intii uu dhaliinka waxa laaliya wixii mamnuuc kaga ahaan lahaay oo dhan baa kaga isagana halka kan oo waa maxay walaaladii islaantani wixii kale ay dhashay ama odaygan islaantan caaneeya caanaha ka keenay wixii uu dhalay waxaasoo dhan walaalbaa loo xisaabinaya wixii habaryar u ahaa wixii eedawa yacni sidii ilma ay dhashay un wixii ku xeeraa ee mamnuuc ka ahaayoo dhan reerkaa waad ku biirtay un walaalaad ka tirsantay islaanta naaska ka nuugtay reerkeeda waxaad la mid tuun ilma ay dhaleen oo kaleo sidii ilmaha ay dhalaan wixii mamnuuc ka ahaan lahaayoo dhan ayaa kaa mamnuuca idan saddexdaas shayba waa taxriim mu'abad ma guursan kartid ilaa axkaam guur baynu ka warramaynee dumarkaa nasabku keenay aan ka warrannay kuwaa guurku keenay aan ka warrannay kuwaa naasku keenay aan ka warrannay intaasi ma guursan kartid qaybna waa muxaramaad laakiin waa waqti mar bay mamnuuc tahay laakiin xaaladda haddaad ka baxdo way bannaanaan kartaa maxaa ka mid waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf laba hablood oo walaalaa mar ma wada guursan kartid socankaa maaha adoo gabadh qaba walaasheedna ma guursan kartid haddaad se iyada furto maxaa dhici kara walaasheed waad guursan kartaa markaa waxa mamnuuca un intaad tan qabto inaanad maxay tan kala guursan karin laakiin haddaad tan ama aad furtid ama ay kaa dhimato soomaalidu dhimashada u yaqaan xigsiin baa laysiiyey bay odhan jireen tu yaroo dan buu guursan jiray oo isla walaasheeda marka waanad kulmin karin laakiin midba gaarkeeda waad u guursan kartaa marka waa muxarama mu'aqat ah wakhti leh waxaa la mid ah inanta aad guursatay habaryarteed iyo eedadeedna lama guursan kartid inan iyo eedadeed mar ma wada qabi kartid inan iyo habaryarteedna mar ma wada qabi kartid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid ku tilmaamaya laa yujmac bayna almar'a wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmin karo ama gabadh iyo habaryarteed lama kulmin karo yaan kale la guursan karin labaynu sheegnay soo maaha labadii walaalaa inaan la kulmin karin labadii habaryar ama eedaysu ahaana inaan la kulmin karin waxaan kaloo la guursan karin oo iyadu wakhti mamnuuca dee gabadh mehernin ugu xidhanna miyaa la guursan karaa maya iyana lama guursan karo ka warran hadduu furo ay ciddadii ku jirto iyana lama guursan karo marka waxaan la guursan karin iyadana gabadh ama la qabo ama ciddo ku jirta iyana lama guursado intaasi waa muطallaqaadkii waa yani waa kuwii wakhtiga xaaraanta ahaa waxa iyana la mid ah gabadhaad 3 furtay ka waran gabadhii aad 3 talaaqood dhammaysay ee aad kala tagteen iyana wakhtay mamnuuc kaatay soo maaha waa wakhtigee inta aanay guur dambe soo marin guurka soomaalidu ay sheegteen muxalalka la dha isaga waxba kama jiraan waa gabadhaasi inay sideeda u guursato oo ay dabeetana sideeda ninka u kala tagaan oo iyadoo magaaladeeda joogto madax bannaan ay hesheen markaa waad guursan kartaa laakiin kan ah waan u yaro guursanayaayo dabeetana waa haddana u yaro furayaa isagu ma jiro looma guursanayo waayo waxaynu tilmaami doonnaa xagga dambe kaga warrami doonnaa
guurar aan bannaanaynba ayaynu ka warrami doonaa. waxaa kaloo isna bannaanayn bay culammadu yidhaahdaan zaaniyaddana lama guursado ama zaaniga. fiirso, ninka suuqa iskaga jira waxba ha u guurinin, inanta suuqa ku jirtana lama guursado. laakiin hadday toobad keenaan haa, markaa hadday toobad keenaan oo inankuna xumaha iska daayo ama inantu ay xumaha iska dayso oo ay dad wanaagsan noqdaan, toobaddu dee dembiga hore ilaahay wuu ku dhaafaa. gaalnimadii ka weynayd baa dee laga toobad keenaa, socaynkaa maaha. mar haddii gaalnimo intaad ka soo baxda ilaahay toobadaada aqbalayo, xumo kale inaad ka soo baxdo ilaahay subxaana wa tacaala toobadaada u aqbali doonaa. laakiin inta ay ku jiraan gabadh baytu dacaara suuqa xun ku jirtaan, kaalay wadaada wii guuritan baan guursanayaa, ma bannaana, lagu guurin maayo. intaasi waa intii wakhtiga mamnuuc ahaa iyo intii abid mamnuuc ahayd baynu soo marray. waxaa jira nikaaxyo culammadu ay yidhahdaan waa faasid, iyagu ma bannaana. nikaax waa nikaaxu shikaar bay yidhahdaan, oo innaga kan dhaqankeenna inta badan kuma jiro. waa laba gabdhoodoo la isweydaarsado aan meher layska siinin ama xoola layska ana inantaada si ana taydan ku siinaya isu dhaafsanno. dhaqan soomaaliga kuma jiro. ama walaashay baan ku siinaya walaasha ay sii kuma jiro dhaqan soomaaliga. nikaaxulmuxallal waa kii aynu soo sheegnay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ilaahay lacnadiisu naxariista alle ha ka fogaado qofka wax xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynaya. walidaalika culammadu waxay idhahdaan ma bannaana in gabadh inta saddex lagu furoo la kala tegay inuunan yidhaahdo waan guursanayaa, una waxaan u guursanayaa inuu maxay ninkii kale aan u furo. waayo waxaanad ku guursanaysaa waa maxay? waa biniyati maxay inaad furi doonto. ma bannaan yahay aziwaaj biniyati talaaq aslan, inaad guursato inaad furi doonto? culamo badan waxay qabaan inaanu bannaanayn. waxaa kaloo mamnuuca nikaaxulmutca, gabadha muddaan qabayaa dabeetana waa iska furaya. shiicadaa isticmaasha. islaamka bilowgiisii horuu bannaanaa, kadibna waa la mamnuucay. waa gabadh inaad guursato oo marka horeba guurkiinu uu ku ahaado na sanad baynu isqabaynaa, dabeetana caqdiga waxaa laydinkugu meherinayaa gabadhaa inaad sanad isqabaysaan, sanad kadib waa furantay, waa kala tegaysaan. haddaad doontana dee sooba yareeyana 2 saacadood baynu isqabaynaa, soo maaha? maxay kaga gedisnaanaysaa markaa tan suuqa laga kiraysto? haddaad tiraado wadaad gabadhan ii guuri 2 saacadood ayaanu isqabaynaa, 2 saacadood meheraa ku dhagsii, shiicadaa ku dhagsiisa. dad badan oo afrikaan oo la shiiceeyey, dumarka cadcad baa lagu shiiceeya 2 saacadood loo meheriyey. asliyan nikaaxulmutca ma bannaana. intaa kadib, intaasi waa nikaaxyada aan bannaanayn iyo nikaaxii bannaanaa iyo nikaaxa bannaanay wixii uu ku bannaanaa baynu soo tilmaamnay. waxaa inoo hadha inaynu sheegnaa markaa waxa weeyaan xuquuqda laysku leeyahay labadan qof ee isguursaday. labadan qof ee isguursaday waa guri cusub iyo 2 qof oo isku cusub. qofku markuu gurigooda joogo, gurigooda qaab baa looga dhaqmaa, waxbaa laga cunaa, qaab baa wax loo cunaa, qaab baa wax loo karsadaa, reerku qaab buu isugu xidhan yahay. environment, bii'ad baad ku soo kortay. inanta tanina bii'ad taada ka gadisan bay ku soo kortay. marka la isu yimaado waxaa isu yimaadaa 2 qof oo 2 guro kala nooca ka kala yimi, 2 dhaqan kala wata, hadday doonaan 2 fikradood kala wata. waxay idhaahdaan inta badan qoladan ixsaa'iyaadku guurarka dumaa inta ugu badan ee 6 bilooda horey dumaan bay idhahdaan. 6 bilooda hore sababtay u dumaanna waxa weeyaan bay yidhiin waa cultural coalition ka dhacaya, waa dhaqamada iskhilaaf badan. shahrul casal kunbaa madaxooda ku jira iyo baahiyihii ay qabeen siday u gudan lahaayeen ayaa madaxooda ka guuxaysa. markii la wada hadlayay laysu sheekaynayana qof waliba labeentuu sheegay, socaynkaa maaha.
nina inanta markaad la hadlaysa ma tiraahdaa nin yara gacan adag baan anugu ahay ama markay isguursataan bay ogaanaysaa in gacantu go-ay aad tahay laakiin sheegi maysid marka hore idan nin waliba markuu guursanayo Soomaalidu maxay yidhaahdaan beenna waa lagu xerogeeyaa runna waa lagu dhaqaabay odhan jiray odayada Soomaali ala kulli xaal qof waliba in qurux badan buu iska sheegay markii uu ama saawaya ama reerka wax weydiisanayay inantana inteedii quruxda badnayd baa la sheegay laakiin ficlan markay isu timaadaan maxaa dhacaya run baa la tegayaa intaadii fiicnaydna way muuqan intaadii qalloocnaydna way muuqan inantana waa kadalik inteedii fiicnaydna way muuqan inteedii qalloocnaydna way muuqan idan waxa loo baahan yahay guriga see loo idaareeyaa ama loo fahmaa ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa xuquuqdaasi zawjigee la isku leeyahay inay wax badan tahay kow marka hore ilaahay wuxuu yidhi dhexdiinna waxaa la dhigay maxay mawadda wa raxma kalgacal iyo naxariis xuquuqdana waxaa la yidhi ninku alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu raggu qiwaamatu lbeyt guriga maamulkiisa isagaa loo dhiibay waa masalo si fudud in loo fahmo u baahan bini aadam meel isugu yimaada oo aan kala sarrayn hadday dhacdo noloshaasi ma suurta gasho bini aadam hadduu meel isugu yimaado waa inuu madax iyo majo yeeshaa waa in kala sarrayna jirtaa xataa dad hadduu wax isku darsado oo shirka samaynaysaan shirkadda waa in cidi madax ka tahy westranka idaaraadkooda waxa ka qaldan waxaa ka mid ah idaaro kasta oo la sameeyo westran ku taalla cid baa madax looga dhigaa guriga mooyaane saxanka maaha guriga waxa la yidhi labadiinuba waa simantiin oo yaa maamula meesha laba maamula wada jooga ma macquul laba maamula inay meesha wada joogaan maadaama nolosha kaloo dhanba aanay suurtagal ahayn in hay-adi ay dhisnataan madax lahayni hay-ad aan madax lahayni ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu ku leeyay jinsiga ragga la yidhahdaa maamulka la siiyey guriga marka la isugu yimaado waayo labadan qof mid baa ilaahay shaqu ugu talagalay maamulka guriga waxaa la yidhi ninka ayaa gacanta ku haynaya qiwaamadu markaa waa maamulkiiyo gacanta lagu geliyey maamulka gacanta lagu geliyey si xunna qofku wuu adeegsan karaa si fiicanna wuu adeegsan karaa saxanka maaha islaamku kuma odhan maamulka gacanta lagu geliyay dictatorship noqo madax adko oo wax walba taasi ma jirto maamulka gacanta lagu geliyay laakiin waxa lagu faray inaad u dhaqanto sida shareecada ku fartay sideedaba cid waxa maamulo looga dhigaa cidda uu maamulayo inuu shaqadana si fiican ay u qaybsadaan shirkadaasi markaas in la koriyo ay kobo kacdo maamuluhu hadduu la loolamo cidduu maamulayo ka war iska celi hadduu is idhaahdo dad shirkad managerku inuu is idhaahdo shaqaalaha iska celi ee kusoo gaadhin shirkad soconaysa noqon mayso shaqaalahaga waad horumarinaysaa waad tatwiirinaysaa si shirkadu ay u xoogaysato ay u socoto waxay ahayd ninku maamulo waxaa looga dhigay inuu qiwaama yeesho hogaamin waa leadership inuu leadershipnimo yeesho maaha inuu dictatorshipnimo yeesho sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walahunna mithlu aladii calayhinna walilrijaali calayhinna daraja walahunna mithlu aladii calayhinna haweenku waxay leeyihiin baa la yidhi waxa lagu leeyoo kale xuquuqda ay adigu sugaysid xaq la midaba iyaduna leedayba ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala laakiin walilrijaali calayhinna daraja waa darajat alqiwaama ragga se waxaa la siiyey darajo dheeraad oo ah maxay ta qiwaamada ah ta maamulka ah ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wacashiruhunna bilmacruuf sama in lagu wada dhaqmo guryaha yurub ceebta ugu weyne haysata waxaa ka mid ah in muranku batay furitaankuna tiro batay hadduu dhisan yahayna xagxagadkiisu tiro batay laakiin waxaan is leeyahy waa mismanagement environment cusubna waa la soo galay maamulkiina waa la garan waayey kow ragga ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf sama kula dhaqma baa layidhi bilmacruuf baa la tilmaamay macruufku waa shay mutlaqa oo ku saabsisan curfiga dadka shareecada
bulshada dhaqanka curfi ku wada baa la yidhi curfigu wuxuu u baahan yahay markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta waxa uu iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay kuwa ugu dhaqanka fiican islaamnimada iyo caqiidadu waa inay dhaqan isu beddelaan sida awgeed qofka mu'minka iimaanka qalbigiisa ku jira waxa ka markhaati kaca qaabka uu u dhaqmayo dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wakhiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim raggiina akhyaarta ee ugu fiicanina rag waxa ugu fiican kuwa dumarka u fiican buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rag waxa u fiican kuwa maxay dumarka u fiican walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan wuxuu ku tilmaamayaa qaabka loo dhaqmo nebigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa markuu soo galo caday buu ku bilaabi jiray wuu faraxsanaan jiray markuu guriga joogo ilaa xad ay caaisha tidhaahda ilaahay rasuulkiisiiyo markaad ii cadhaysantayo mar kale waan kala gartaa nebiga ale calayhi salaatu wasalaam caaishaay markaad faraxsan tahay iyo markaad ii cadhaysantahay waan kala gartaa maxaad ku garataa bay tidhi wuxuu nebigu yidhi markaad faraxsan tahayna aad raalli iga tahayna waxaad tidhahdaa warabbu muxamed markaad dhaaranayso nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartee haddaad waxoogaa dareensantayna waxaad tidhahdaa nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartay magacaygumaad ka hijrotaa buu nebigu yidhi yacni labada qof markaa inay isfahmaan baa fiican nebigu ilaa xad buu dareemi karayey marka ay wax ka sii yihiin iyo markay caadiga ka tahay waxaa dhaqanku uu ina baray nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenka sida loola dhaqmayo hadday tahay isku dhowaanshiyo nolosha wadaageeda weelka uu wax ku cabayo halkuu ka cabaabuu u dhiibi jiray yani halkuu ka kabadaabay ka kaban jirtay ama halka iyadu ka kabatay ayuu koobka u dhiibaa halkay afka ka saarto isna afka saari jiray waxaa sunnada nebiga ku soo aroortay xataa inay weel qura ku wada maydhan jireen biyo qura intay dhexdooda dhigaan inay maydhanayeen oo ay leedahay markuu nebigu iga dhammaystaa baa dhahay inta iga tag biyaha iga dhammayni waxaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada ku soo aroortay ka mid ah inay wada beratameen isaga iyo dumarkiisi haweenkiisi caaishuu la beratamay markaasay ka dheeraysay iyadoo ina yaraa beri dambe oo ay cuslaatay ayuu yidhi waynu beratamaynaa markaasay tihi mee beratami maayo mee waa beratamaynaa buu nebigu yidhi cabbaar markay diiday markii dambe way aqbashay wuu la beratamay markaasuu ka dheereeyey dabeetana wuxuu yidhi tilka bitilka taatii u tuur buu ku yidhi berigii aad yarayd adigii mariga dheereeyey anna maantaan kaa dheereeyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxay tilmaamaysaa labadan qof xidhiirka ka dhexeeyay nooca uu ekaa ilaa xad ay iska beratami karaan oo orod lagu beratami karo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahy laa yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara war qof mu'mini gabadh mu'minada uma cadhooda buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ma naco waayo haddaad wax ku nacdo wax kaloo aad ku faraxdaad arkaysaa buu nebigu lehy calayhi salaatu wasalaam tan macnaheedu waa maxay qof 100% perfect ahay ma jiro miyuu jira qof bini aadam oo ceebka saliini maya qof waliba ceeb buu leeyahy qof waliba iin buu leeyahy qof waliba meeluu ku liitaa jira wuxuu ku liitaa jira see la yeelaya markaa haddii gabadhiina waxay ku liidataa jirto ninkiina wuxuu ku liitaa jiro see la yeelaya waa in la manage garayn karaa waa in la maamuli karaa in la wada noolaan karo iyadoo ducfigaada lays og yahay iyadoo layskabayo markaasi taa macnaheed waxa weeye nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof mu'mini gabadh mu'minada ma naco waayo buu nebigu leeyahy hadduu wax ay samaynayso wax necbaysto wax kaloo ay ku fiicantay baa jiro oo lagu raaco lagu wato idan qofka bini aadamka positifkiisa iyo negatifkiisa markaad sugayso hadduu 60% 70% noqdo waa qof la wadi karayo maaha inaad tidhaahdo this and this 20% xun buu leeyahy oo ceeb masaa'il caynkaasi uu leeyahy masaa'il la wadi kara hadday tahay waa in la wado walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy istawsuu binisaa'i khayra war haweenka khayr u dardaarma buu nebigu yidhi war feer qalloocdaa laga abuuray feer qalloocdaa haddaas tidhahdee toosina way jabaysaa buu nebigu leeyahy yacni nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaab loo wada dhaqmi karaa mar kasta inuu jiro siibana ninka inay mas-uuliyaddu saarantay
والرجل الراع كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته بنبي qof waliba waa mas-uul qof walbana aakhira waxaa la weydiinaya raciyadiisii waxa lagu weydiinaya waxaa ka mid ah reerkii sida aad u maamushay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara maamulka reerku wuxuu u baahan yahay kow wixii naar lagu gelaya inaad ka ilaaliso wacdidid ilaahay baridid waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha baa nebi maxamed baa ilaahay ku leeyahy reerka far salaada idan reerka kow inaad khayr oo dhan ugu yeedhid waxaa kale gurigaasi looga baahan yahy waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxdaa waa mamnuuc yacni waxaa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah laakiin in ay labadooda dhaafta ay xaaraan tahay oo meel kale inuu u baxaa waa xaaraan warka odaga iyo islaanta u dhaxeeya gaarka ahi shareecadu waxay tidhi inaan meel kale lagaga warramin ama meel kale aanu u bixin weeyaan waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nebigu tilmaamayaa hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo farjigeeda ay ilaashato oo ninkeeda ateecdo waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha madax baad tahay laguna aqbali maayo haddii lagu yidhaha ka warran wax jira maaha waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda gurigoo qura maaha soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar soomaaliya loo dhibo madax baa tahay looma ogola inuu maamulay haddana dadkunba odhanaya ma waxaan sidan la yidhaha macaynka lama aqbalayo asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa gurigu madax buu leeyahay madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan dumarku masalada waa inay fahmaan gurigu madax buu leeyahy yes madaxda waa lala talinayaa madaxda waxbaa loo sheegayaa madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ay ateecdo labada waalid iyaga xorriyaddooda ka tanaasulay daacadoodii oo ninkugu daray markaad nin yeelato waxaa warkiisa la hor aqbalayaa ninkaa ka horreeya labadaada waalid qofka dumarka ah ninka qaba ayaa ka horeeya maxay waalidka haddii warku noqonayo inay iskhilaafaan walidaalika daacadeedii waxay taagantahy nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabi baa shaam iyo meelahan bay yimaadeen mucaad ibnu jabal iyo shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi waar nebiga mudan in iyoba wadaadkoodii u sujuuday ma nebi maxamed nebiga wayno sujuud baabu iskala dhaca nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalam war waxaanaad waddaa waa maxay suu yidhi ilahi rasuulkiisi oo shaam baan ka imiyo waxaan arkay iyadoo kiniisadda iyo kuwii loo sujuudayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuudaa ma bannaana qof kale loomana foorarsado lowyadana dhulka looma dhigo laysumana gaabiyo loomana sujuudo sharcigu wuxuu baneeyo ixtiraamku ugu jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo taasaa ah ixtiraam kama dambaysta ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan isagoo dad u fadli badan wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadka aad karaamaynayso laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala rabbuunbaa loo rukuuca loo sujuuda dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddiiba aan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa buu yihi ninkaaga u sujuud sujuuddu soo maha daacada halkii ugu dambaysay haddiiba uun laba qof lo odhan lahaa ha laysu sujuudo gabadhaan ku odhan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninkaaga u sujuud taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu daaca mutlaqa inay la timaado waxaa jirta gabadh maraykana waa tan la yidhi dunidu waa simanta rag iyo dumarku waa simayin muddaa laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warka kan uu tiro batay guryihii baa dhismi waayey gabadh maraykana waxay tijaabisay ninkeediiyo wixiibay isdileen way ka tagtay dabeetana baxtay samaysay research waxay raadcaysay guryuhu maxay u dumaan baxdigeedii way waday naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo waraysatay naa maxaad samaysaa waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo
ninkii iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahay dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo markaynu tarjunno istaslimii lizawjik buug la yidhaaho naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhahday qortay buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali dabca gabadhii taajirad baabay ku noqotay buuggii yaraa waxay noqotay dadka marmuuq ee wax la weydiiyo dabeetana waxaa bilaabmay ololo dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdilladana dee gabadhu ninka xoog badan mayso haddii laakiin ay tahay in ismaqallo waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba idan waxa muhiimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weyn ee lagu leeyahay koowaad waa maxay waa xaqu taaca inay aqbasho ninka kan inay u hoggaansanato maadaama iyadu dooratoo guursatay gurigiisana inay u ilaaliso waxaan ku soo koobaynaa markaa xuquuq badan baa la isku leeyay oo xaqii nafaqada ah dhaqaalihiya ninkaa lagu leeyahy inuu dhaqaalaa bixiyo gabadha in la dhaqaaleeyo carruurteeda in la dhaqaaleeyo waxay u baahan yihiin in la siiyo dhammaantood ninkaa lagu leeyahy markaynu soo duuduubno waxaynu leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo guryuhu way dhisnaanayaan masaladan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi soo maaha bashar isu yimi oo aan wax isku qabanina ma jiraan bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro xataa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay oo intay haweenkii wax is yidhaahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay meel dabada iska tegey oo saxaabadii yaabtay oo la war kutiri kutaani soo baxay nebigiiba dumarkii furay oo mushkiladii tiro badatay oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisan yahay waxa weeyaan sidee loo xallilaa mashkiladda how to solve the problem saad mashkiladda u xallilaysaa siiba guryahan dabadda yimi iyo reerahan dabadda jooga waa yeelkii hore waa laga soo fogaaday markii waddanka la joogay waxaa laga yaabaa gabadha qaraabadeed baa joogay eedooyinkeed habaryaraheed aabbaheed awowyadeed tolkeed ninka sidoo kale labadooda ka guracan cid la hadashaa la helayay cid qabataa la helayay xataa wuxuu ka xishoonayay wuu ceeboobayay oo dee reerka dhexdiisiiya wixii marka la ydhaho warkan jacjacoorka ee gabadhan sida u gelaya la ydhaho wuxuu ka xishoonayay wax badan oo culturally qofka ku xeeran baa jiray oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay laakiin markii dabadda loo soo baxay kow culturekaasoo dhammi wuu lumay cidiba kuguma xeerree keligaa baad joogtaa beriskana mid waliba gaarkiisa uu helayaa gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa ninkuna beriskiisa gaar buu heli karaa dabeetana waxay noqotay ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto maryaa inoo kala gurun ma waxba kale awalba isugu keen jiray shandadaada qaado ayi mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku maryaha kala soocdo oo u kala tago waxa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo carruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin waxaa qiimo la siiyey 2 kelmadood oo laysku qabtay 2 weedhood ama wax yar oo laysku qabtoo muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaayee kaloo dhan ee la samaynayey lagu ilaabay waxaa habboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo marka waxaan ku soo koobayaa uun haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo dawaysmi kara haddaan se la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha uu ka yimaado maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum